waxaan laba hadal ka leeyahay laba eray ka leeyahay hawlgallada socda oo aan doonayno inaan ammaanka ku sugno ee dalka waa ognahay dalku dagaal ayuu ku jiray muddo dheer hadda waxaan ku soconnaa 11 sano dowladihii iga horreeyay iyaga naftigooda dadaal badan iyay soo galeen si ay amniga u sugi lahaayeen annagana waxaana laga rabaa cidda naga dambaysa inaysan amni ka hadlin oo ay ka hadasho horumar iyo howlo kale ka hadasho marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in arrimaha amniga aan soo afjarno oo cadowga ee manaxayaasha ah oo aanan inaba ha yaraatee arxaan iyo naxariis u haynin shacabka Soomaaliyeed qofka hadduu dawlad u shaqeeyo hadduu u shaqeynba isku si isugu daya inay u laayaan dhiigooda xalaaleystaan inaan ka hortagno oo dhibkooda aan soo wada afjarno kulligeen hawlgallada socda hadda runtii waxay lahaan karaan ciriiri iyo dhib maxaa yeelay dagaalkaaba ahba dagaalku wuxuu wataa dhibaato wuxuu wataa dhaawac fara badan wuxuu wataa dhiig badan iyo wuxuu wataa dhaqaale xumo duruufo adag ayuu wataa taasna waxay muujinaysaa Soomaalidu inay yihiin dad resilient ah dad aad iyo aad u adag oo marnaba aan quusan marna aan isdhiibin waa calaamadaha shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed lagu yaqaano oo ay caalamka runtii ku amaanaan 10 sano iyo 11 sano dagaal ma socdo dagaalku muddo yar yuu socdaa maxaa yeelay dagaalku wuxuu wataa saan sheegay dadku waa kala diraa dadku waa qalbi jabiyaa dhaqaaluhu kala dagaalaa cid alle cid u imaan lahayd oo wax ku darsan lahayd yuu ka celiyaa haddee waxa weeye dal aanan amni lahayn ama nabad aanan ahayn cid ku soo dhiiranaysa ma jirayso cid dhaqaale gashanaysa ma jirayso amnigu waa aasaas nolosha bini aadanka iyo horumarkiisa ah waxa weeye hadduu dalku uusan amni lahayn ma filaysid in horumar laga hadlo ma filaysid in nolol laga hadlo ma filaysid wax walba waa istaagayaan waxa weeye saldhigga bini aadanka waa nabadda weyn marka inaan ka wada shaqeyno nabadduna ma aha wax shakhsi uu leeyahay wax dawlad kaliya ay leedahay wax madaxweynuhu leeyahay ma aha amnigu waa wax ummadoo dhan ay wada leeyihiin ay wada wadaagaan qof walba doorkuu rabo ha ku lahaado hadduu yahay qof dukaan iibsada hadduu yahay qof ardaya hadduu yahay qof macallina hadduu yahay qof guryaha dhisa waa loo wada siman yahay waxaa loo baahan yahay marka cidda shaqada gaarka ku leh oo ciidamada ah in lagu taageero gacan lagu siiyo hadday noqoto in niyadda loogu dhiso hadday noqoto dhaqaale in loo siiyo hadday noqoto information iyo macluumaad la siiyo meesha uu cadowga joogo inaan la garab istaagno ciidamada qalabka sida si hawshooda ay ugu fududaato baryahan dambe saad maqlaysaan ciidamadeennu waa howlgaleen dhowr bare iyay ka qabteen cadowga maxaan ku rahdaa argixisada ah khawaarijta ah oo ay ka soo gudubsadaan waxyaabaha qarxa inay magaalada Muqdisho keenaan ay ku laayaan dad aad u fara badan hanti badanna ay ku burburiyaan macnaheedu waxay tahay annagoo dhan iyo shacabka Soomaaliyeed waxay noo arkaan cadow waa ognahay in dibadaha dad Soomaali aan jeclayn oo shisheeyay inay wax siiyaan laakiin in la isweydiiyo qofka shacabka inuu maxaan ku rahdaa macluumaad ka keeno cidda kale oo aan anagu garanayn oo shacabkeena ka midka ah oo dhaqaalaha ku bixisa wax yarkaan isku hayno waxba ma aha cadowgaasi dawlad uma socdo maxaa yeelay dawladihii ugu horreeyay saas ula dagaalayay haddii aan fursad siinana dawladaha naga dambeeyana wuu la dagaalay wuxuu la dagaalsan yahay xasilooni iyo nabad dalkan ka dhalata wuxuu la dagaalsan yahay maxaan ku rahdaa dawlad yuu la dagaalsan yahay wuxuu la dagaalsan yahay in Soomaaliya ay qaran tahay maxay xamar u qarxinayaan xamar maxay u qarxinayaan xamar waxay u qarxinayaan in la yiraahdo meeshaasi dawlad kama jirto marka inaan u wada midoowno kulligeen marka hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay mas'uul iyo hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay ururada bulshada in dadkaasi aan la wada dagaalno oo aan loo deynin dagaalkooda ciidamada qalabka sida oo aan ognahay duruufaha adag ay haystaan haddii shacabku uu gacan siiyo ciidamada qalabka sida inaan si yar aan uga guulaysan karno intan ay nooga laayeenna dagaal noogama lahayn waa xaqiiqa inta shacab ay laayeen iyo inta maxaan ku rahdaa siyaasiyiin ay laayeen
xildhibaanay laayeen inta ay laayeen maxaan ku rahdaa caruur iyo ciroolaba dagaal noogama layn lahayn xaqiiqo weyn maxaa yeelay hadda howlgalladii la sameeyey hal qof noogama dhiman waana laga eriyey aagagii ay fadhiyeenna waa laga qabsaday howlaha amnigu waa wadareed waxaa jiri kara dad inay naga fakr duwan yihiin laakiin waa nabadgelyadu qof gaara ma laha qof gaarana nabadgelyadu uma adeegto waxa weeye waa inaan u mahad celinno waa inaan u hambalyeeno ciidamadeena qalabka sida dadaalada ay ku jiraan shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa inay garab siiyaan qof walba oo Soomaali ah inuu garab siiyo maxaa yeelay cadowna wada haysta weeye oo dib nagu haya haddaynan si wada jir ahna inaan uga wada hortagin waxa weeye dagaalku waa iska sii socon dagaalka sii socdana waxaa ka dhalanaya dadku inay sii qalbi jabaan maalin ka dambaysa adduunka uu nooga sii fogaado adduunka aan maxaan ku raahdaa aan ka harno iyo colaado kale oo iska yimaada oo ku hoos jira taas marka waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ciidamadeena qalabka sida aan kulligeen aan isu taagayno sida aan garab u siin lahayn gacan u siin lahayn wax walba u baahan yihiinna biyo iyo caano iyo wax walbana aan ugu geyn lahayn aag ay joogaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh